tababarkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah oo ay iska kaashanayaan ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier, Sonsaf iyo waliba midowga Europe ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay sharaxaadna ka bixiyay tababarkan iyo waxa uu daaran yahay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier Sakariya Axmed Maxamed iyo agaasimaha ururkaasi. tababarkan maanta halkan aynu isugu nimid ee furitaankiisa aynu joogno wuxuu daaran yahay habtabinta toolmoon ee saxafiyiinta ama saxaafadda hay'adaha warbaahintu habtabinta toolmoon ee xilliga doorashada oo leh xilliga doorashada ka hor maalinta doorashada iyo doorashada kadib. tababarkan waxaa ka soo qayb galay warfidiyana ka kala socda 3 gobol waxa weeyaan Maroodi Sheekh Awdal Saaxil iyo Gabiley waxa markaa aynu ujeedadu tahay in la isxasuusiyo shaqadan mihnadan aynu hayno in wariyaasha ama warfidiyanadu ay ku tababarnaadaan qaabka looga tabinayo doorashooyinka xilliga doorashooyinka ka hor iyo kadib wali xilliga natiijada la sugayo ay tahay xilliga ugu dhibaatada badan ee wariyaashu ay tahay inay aad uga taxadaraan khatarteena inaga siibata ama xogta aynu tabino waxay abuuri kartaa khalkhal waxay abuuri kartaa isku dhac marka sidaas daraadeed inaga warfidiyana ahaan maadaama oo mas'uuliyaddeena saaran ay tahay inaynu bulshada ina sugaysa ee warkeenaga sugaysa in aynu u tabino waxa dhacaya iyo doorashadu sida ay u socoto waxa muhiim ah in saxafiyiintu ay xirfadaas lahaadaan oo ay noqdaan dad xirfadlayaal ah oo professionalismka ku shaqeeya xilligaasi oo aan dhinacna u dhaafin. waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf mudane Anwar Cabdiraxmaan Xasan. waxaanu ka shaqeynaynaa haddaanu nahay ururadii bulshada 2 qodob oo mid yahay pre-election wax la yiraahdo doorashada ka hor maxay noo bannaan inuu qaban karnaa midna uu yahay post-election doorashada kadib maxaynu qaban karnaa marka tan aynu imika wadna ee tababarka suxufiyiinta la siinayo iyo hawlo badan oo kale la halmaala waa ka hor doorashadii wixii aynu qaban lahayn sidii doorasho hagaagsan ay noogu dhici lahayd maaha markii ugu horeysay dee Soldier iyo Sonsaf ka wada shaqeeyaan arrimaha saxaafadda tan iyo 2015kii Soldier waxaan ka taageeraynay dhinacyada tababarada ee suxufiyiinta mana noqonaysa tan tii ugu dambeysay hadii Ilaahay yiraahdo ee waa sii wadaynaa tababaro kale oo badan oo aan ugu talagalay in lagu taageero ama capacity-gooda lagu dhiso suxufiyiinta ka howlgala Somaliland. gabagabadii waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay isla markaana si rasmi ah u furay tababarkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac. inoo qiimaha badan qaran ahaan macnaha inoo sameynaysa dunidu inoogu majeeranayso laynaga sugayo natiijada aynu ka keenaynaa waa inaynu nabadgeliyo ku kala saarno axsaabta 3 ah iyo 1000 murashax inta ku dhow ee ku kala tartamaya labada doorasho taa si aynu u gaadhno nabadgelyada waxay muhiimadu noqotay kow in la tababaro la wacyigeliyo ciddii fariinta doorashooyinka inagoo marka horeba heshiiska waa cidda mas'uuliyadda doorashooyinka qabashadeeda inoo leh oo ay tahay komishanka doorashooyinka qaranka inaydan garataan kaalinta ku leedihiin geed socodka dimuqraadiyadda iyo shaqada weyn ee noo taala madaxweynaha maanta talada haya wuxuu insha Allah aynu rajaynaynaa inay taariikhdiisa iyo madaxweynaadkiisa u gali doonto hadii Ilaahay yiraahdo inuu extension-kii naga galay 12 sanadood ee duruufuhu keeneen ay ku fadhiyeen golaheena wakiiladu iyo extension-kan kale iyaduna kaba duwan xataa aan helin muddo kororsiga golayaasha deegaanka inuu extension-kii ka saaray isku marna ku dhiiriday inuu inoo qabto oo ummadda loo qabto 2 doorasho isa saaran